الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. casharkana maanta wuxuu ka bilaabanayaa suuratu lfaatixa bilowgeeda. suuratu lfaatixa makiyo weeyaan, aayadaheeduna 7 aayadood weeyaan, erayadeeduna 25 erey weeyaan. haddaba suuradda waxyaalo waaweyn ee caqiidada islaamka saldhig u ah ayay ka hadlaysaa. waa ma arki doontaa kolkaanu maqnayno si eebba yidhaahdo. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu sugnaatay, rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda. mahad oo idin ilaahay ayaa iska leh, allaha oo ah caalamiinta oo idin kii abuuray, kii rabbi u ah maamulahaya. ilaahay subxaanahu watacaala waa ismahadinayaa, waana na barayaa in aanu sidaas oo asagu isu mahadiyey ku mahadinno. alxamdu lilah, mahad allah iska leh, rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah. ku naxariista, naxariista teeda ballaaran ku naxariista, naxariista teeda caamka ah ee adduunyada dhexdeeda ah, kaafir iyo mu'minba iyo wax nool oo dhan camimaysa, allaga ku naxariista. arraxiimi, naxariista, naxariista gaabka ah ku naxariista, naxariista teeda yaryar ku naxariista, naxariista khaaska ah ee ku gaabka ah dadka mu'miniinta ah maalinta qiyaamada ku naxariista. allahaas ayaa mahad iska leh. arraxmaan arraxiim, ilaahayga naxariista adduunya aakhirada naxariista iska leh. naxariista adduun iyo midda aakhirada iska leh ku naxariista, midda gaab iyo midda guud ku naxariista, midda waaweyn iyo midda yaryar intaba ku naxariista. oo waxa weeyaan arraxmaanida iyo arraxiimida. arraxmaanida ayaa guri weyn ee ballaaran, sida xurufteeda kolkaa fiiriso ay uga xuruf badan tahay, ayay macnahana uga ballaaran tahay. marka arraxmaanid waxay keenaysaa naxariis guud oo dadka oo dhan iyo waxa nool oo dhan gaaraysa. naxariistaasuna waxa weeyaan naxariista ilaahay adduunyada taalla. naxariista adduunyada waxay gaaraysaa waxa adduunyada ku nool oo dhan way gaaraysaa. low naxariistiisa ay ahayna wax noolaan lahaa ma ay jirin. arraxiimina waxaa lagu fasiraa naxariista gaar ahaaneed ee ilaahay ku gooni yeelaya naxariistiisa aakhiro dadka mu'miniinta ah ee ehlu jannaha noqonaya. maaliki yawmi ddiin, abaalmarinta maalinteeda maaligeeda ama maliki yawmi ddiin, abaalmarinta maalinteeda maligeeda iyo boqorkeeda. ilaahay subxaanahu watacaala maalin walba asagaa iska leh, adduunya aakharaba asagaa iska leh, adduunya aakharaba asagaa melig ee boqor ah. marka maalintaa waxaa loo khasisahayaa inta kaleeto ee maalinta aan ahayn ee adduunyada adaa sheegad baa jira, caaliyaa jirta oo waxyaalo caali ahaan loo sheeganhayo lahaasho ah ayaa jirta, ama boqortooyo la sheeganhayo ayaa jirta, ama maalinta aakharo wax sheeganhaya wax milkin ama boqortooyo sheeganhaya ma ay jiraan. asagaa sheegadkii oo dhan asagaa loo sallimhaya, looga tanaasulahaya, xaqiiqadeedii arrinta u noqonaya, wixii caaliya ahay oo dhan way zuulaya. dadkii keliyaa soo haraysa ee ah ilaahay inuu lahaashada leeyahay, keligana boqor yahay. iyaaka adigaan allow nacbudu ku caabudaynaa, keliga ayaan cibaadada kugu gooni yeelaynaa. wa iyaaka adigaan nastaciinu kaa kaalma dalbaynaa, adigaan ilaahayow kaalmana ku weydiisanaynaa. ihdinaa na hanuuni assiraada, jidka nagu hanuuni, almustaqiima ee toosan ee ah diinta islaamka. siraada aladiina kuwii jidkoodii ah
nicmaysay dushoodaad ugu nicmaysay ridahaaga iyo muxuuha risaaladaada iyo naxariistaadaad ugu nicmaysay iyo islaamnimada gayri lmaqduubi calayhim kuwii loo carooday keyrkooda ah kuwaas aad u nicmaysay kuwii loo carooday ma aha kuwaa oo ah yahuudi waladaalliina kuwii lumeen aan ahayn ee ah nasaaradii ayaguna dariiqii ilaahay ka lumeen iyo wixii jidkooda qaado oo idin haddaba suuradan 7 aayadood ah kolkaad fiiriso waxyaalo waaweyn oo saldhig caqiidada ka mid ah ayaa laga faa'iidaysanaya. midda u horeysa waxaad arkaysaa suuraddu in lagu bilowday bisinka ilaahay sida suuradaha qur-aanka oo dhan loogu bilaabanhayo suuratulbala mooye inta kaleeto oo suuradaha qur-aanka waa lagu bilaabanhaya. ayadana haddii eeba yidhaahdo markaan ayada ka hadlaynaa xigmadii bisinka looga tegay suuratulbala ayaanu ka hadli doonaa. marka waxay tusinaysaa taas magaca ilaahay wax kasta oo muhim ah inay habboon tahay in lagu bilowdo sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam amar kasta ee muhim ah oo bisinka ilaahay aan lagu bilaabin waa mid oo abtar ah manaa ku erib xun weeyaan oo dib go-an oo barakadiisu ay naaqis tahay. taa waa mabda' weyn ee laga faa'iidaysanhayo bilaabashada bisinka ilaahay loogu hordhigay ee lagu bilowday. tan labaad waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala inuu yahay mahad oo dhan asagu iska leeyahay isna mahadinhayo dadkan uu barahayo koonkaan oo dhanna inuu asagu rabbi u yahay. ogaashada taa qofku ogaado waxa weeyaan caqiidadeeda saldhigeedii uu helayo markuu ogaado koonkaan oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala inuu rabbi u yahay inuu maamulahayo marka inay tahay arrinta in asaga loo celiyo lagana qaato waxa weeyaan saldhigga caqiidada islaamka weeyaan taas. waxaa halkaas ka garanaysaa ilaahay inuu yahay kii naxariistay naxariistiisa ay ballaaran tahay cadadiisana ay ka horeyso kana badan tahay. inuu asagu yahay maalinta qiyaamada kii ee iska leh oo markaa halka aad ka garanayso maalintii qiyaama jiridii aad ka garanayso maalin dambe inay jirto oo dadkii oo dhan la abaalmarinayo qof walba wuxuu soo kasbaday khayr ama shar lagu abaalmarinayo. taasina waxa weeyaan saldhigyada caqiidada in qofka uu rumeeyo maalinta aakhira jirideeda iyo qof walba in lagu abaalmarin doono waxa uu kasbaday. tan kale waxa weeyaan ilaahay cibaadada in lagu gooni yeelo iyo kaalma qalabkaba labadaba ilaahay lagu gooni yeelo. tan kale in muxuu ahaa ilaahay halkaa naga tusinayo sidaan u baryi lahayn oo markaas addoonku ay tahay dariiqiisu ama waxa la gudboon asagoo dadaalayo awooddiisa oo dhanbixinhaya haddana inuu ilaahay ku tiirsanaado had iyo jeer ilaahay u baryayo ihdina siraada almustaqiim jidka toosan ilaahu nagu hanuuni jidkaa oo ah kuwii hore dariiqoodii. haddaba halkaas laba dariiq inay jiraan kuwo ilaahay u nicmeeyey iyo kuwo ilaahay u carooday iyo kuwo baadiyoobay inay dariiqyada ay jiraan. marka jidka had iyo jeer dadka mu'miniinta ay weydiisanayaan waxa weeyaan jidkii kuwa loo nicmeeyey ee ambiyadii ilaahay iyo shuhadadii iyo dadkii wana wanaagsanaa jidkoodii ah. waxaa la wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ilaahay baa yidhi manaa xadiis alqudsi oo ilaahay uu yidhi nebigan uu ka xikaayonhayo ka warramayo. ilaahay baa wuxuu yidhi salaada waan qaybiyey aniga addoonkayga yaan ku dhex qaybiyey qayb anigaa iska leh qaybna addoonkaygaa iska leh. addoonkaygu waxa uu su-aasho wuxuu u weydiisto ayuu leeyahay. addoonkaygu markuu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa markaa ilaahay yidhaahdaa addoonkaygu way ammaanay way mahdiyey addoonkaygu. markuu yidhaahdo arraxmaan arraxiim oo sidaas addoonkaygu faatixada akhrinayo arraxmaan arraxiim uu yidhaahdo ilaahayna markaa wuxuu yidhaahdaa addoonkaygu way ammaanay. kolka hore alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu yidhaahdo wuxuu ilaahay odhanhaya addoonkaygu way mahdiyey. arraxmaan arraxiim markuu yidhahdana ilahay wuxuu odhanhaya addoonkaygu waa ii ammaanay. maaliki yawmi ddiin markuu yidhaahdana wuxuu odhanhaya addoonkaygu waa i sharrisay. iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu markuu addoonku yidhahdana ilahay wuxuu odhanhaya taas aniga addoonkayga u dhaxaysa. ihdina siraada almustaqiima siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim waladaalliina markuu yidhahdana ilahay wuxuu odhanaya taa addoonkayga u sugnaatay addoonkaygana waxa uu su-aasho ayuu leeyahay. haddaba taas iyo waxyaalkaas suuraddan ay tusaalaynayso waxaad ka garanaysaa suuraddaanu macnaha weyn oy leedahay iyo had iyo jeer akhriskeedu ugu badan yahay salaada loogu soo celcelinhayo dadka muslimiinta ah qof kastoo mu'mina iyadoo ku tacalluqsan
baaqal ahayn oo markaa fad iyo jeer faatixada qofka mu'minku ula xiriiro akhrinhayo. salaada ayada lagu tukaninna maba ansaxayso sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, salaad ma laha qofkii aan faatixada akhriyin. sidaasuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. marka waxa weeyaan faatixada waa saldhigga ayadoo qur-aanka lagu furfurtay ee bilaabashadiisa ay tahay, haddana caqiidada saldhiggeedii weeyaan. waxyaalka waaweyn oo dhan ayay ka warramaysaa. saas daraaddeed baa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ilaahay wuxuu ku siiyey 7 lasoo celceliyo iyo qur-aankaa weyn. 7 lasoo celceliyo waxaa lagu fasiray faatixada 7deeda aayadood ayaa lagu fasiray. soo celcelinteeda oo akhriska had iyo jeer lagu soo celcelinhayo, xataa soo degiddeeda waxaa la wariyey 2 jeer inay nebiga ku soo degtay. ayadoo mar ku soo degtay ayaa haddana mar labaad sidii ayadoo cusub haddana lagu soo dejiyey ee malaa'ig badan ay sugantamayso. saas daraaddeed dadka mu'miniintu waxa wanaagsan had iyo jeer faatixada inay la xiriiraan qolkay akhrinayaan, ayada oo macaanideeda tadabburayo fiirfiirinhaya. ilaahay inuu mahad oo dhan iska leeyahay, koonkaa rabbiga inuu yahay oo maamulaayo, naxariista inuu yahay, naxariista waaweyn ee teeda yareeba ku naxariista, aakhara ayagoo qalbiga ku haya oo milicsanhaya, cibaadada iyo waxa ay la imaanhayaan daacada ilaahay ayagoo ku gooniyeelayo si daacada ula imaanhaya, ayagoo markaas ilaahay baryada u jeedinaya wanaagsan oo marka ilaahay nagu hanuuninhayo. ihdina siraada almustaqiim. jidkaa toosan waxaa lagu fasiray jidka islaamka inuu yahay, oo markaa ka magangelaya ilaahay inuu baadiyeeyo kuwii hore ee baadiyoobay jidadkoodii, kuwaas ka magangelaya ilaahay. jidkaa toosan oo weydiisanayaan waxa weeyaan kuwii ilaahay u nicmeeyey jidkoodii, oo aan ahayn kuwii ilaahay u carooday. yahuudda ayaa lagu fasiray kuwa ilaahay u carooday. waladaalliina kuwii baadiyoobayna aan ahayn. casharkeenna maanta intaasu koob yahay. wasalaamu calaykum waraxmatullah. casharkeenna maanta wuxuu ka bilaabanayaa suuratulbaqara bilowdeeda. suuratulbaqara madaniyahay, waxay ku soo degtay madiina nebigu intuu soo haajiray, waxayna ka mid tahay suurooyinkii soo degay nebigu markuu soo haajiray kuwa ugu horreeyey. aayadaheeda badankooduna waxay ku soo degeen si isdarajoog ah. hase yeeshee waxaa lagu helayaa aayado ka mid ah qur-aanka soo degidiisa kuwa ugu dambeeyey. aayadahaas oo ah aayadaha ribada ka hadlaya, waxay ka mid yihiin aayadaha ribada ka hadlahaya qur-aanka soo degidiisa kuwii ugu dambeeyey. suuradan sida ay u hadlayso waxa ay ka kooban tahay 2 qodob oo waaweyn ayuu hadalkeedu u badan yahay. 2daa qodob oo kala ah yahuudda iyo horstaagga ay samaynaysay diinta islaamka hor istaagaysay, iyo cadaawinimadii ay la cadaaweynaysay, taa oo aan arki doono aayaad badan ee ka hadlaya nicmada ilaahay ugu nicmeeyey iyo dabeecadooda say ahaan jirtay. weligeed ay insaan nicmada ilaahay ku tusin jireen, rasusha muxuuha waxyaalkiiyo dhibaatooyinka ay muxuuha ka soo martay iyo sida muxuuha xaalkoodu ahaa. xaalkaas ayaana loogu soo bandhigi doonaa suuraddan. isla waqtigaas yahuudda iyo kuwii afkood ku shaqaystooyinka ahaa ee islaamnimada sheeganaya munaafiqiinta ahaa xiriirkii ka dhexeeyey ee ay u wada heshiiyeen nebiga iyo asxaabtiisa sidii loo lugoyn lahaa, iyo kuwii kaleeto ee gaalada ahaa ee mushrikiinta ahaa. waxay kaleeto ka hadlaysaa dadka mu'miniinta ah. casharkeenna maanta wuxuu ka bilaabanhayaa suuratulbaqara bilowgeeda. suuraddan waxaa la yidhaahdaa suuratulbaqara, waxaa loogu magac daray qisada dhexdeeda. سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما عشركنا maanta wuxuu ka bilaabanhayaa aayadda 64 ee suurada Nisaa kamida waxaan ku soo jirnay munaafiqiinta axwaalkoodii Ilaahay wuxuu noo soo sheegay subxaanahu wa ta'aala dabeecooyinkooda inay kamid tahay hadii loogu yeero kan Ilaahay uu soo dejiyay kitaabka Ilaahay ah rasuulka hadii loogu yeero in ay ka jeestaan وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا markii taana loo soo sheegay haddana xaalkooda xumidiisa iyo si adduunyadana ugu kashif mahayaan aakhirana hoog iyo cadaab ay u leeyihiin ayaa nala soo ishaaray ayadoo waliba nala tusinhayo been ku dhaarashadooda had iyo jeer inay cudurdaar iyo been ay ku dhaartaan markii xumidoodu ay muuqataba oo taas isku dayaan inay xumidooda ku qariyaan Ilaahay wuxuu soo yiri subxaanahu wa ta'aala kuwa waa kuwa Ilaahay og yahay wixii uurkooda iyo qulubtooda ku jira ee isaga jeeso wacdina oo hanuuni had iyo jeer waxaad ku tiraahdaa naftooda qowl xeel dheer waqul lahum fi anfusihim qawlan baliiqa hanuunin iyo aqli celin ku jirto saa kula mucaamalo dana halkan iyadoo walitii ay la xiriirto waxana la tusinhayaa muhiimada rasuulka loo soo diray inay tahay in la adeeco oo wixii la soo diray la qaato Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala wama arsalna ma'nan dirin min rasuulin rasuul ma'nan dirin illa liyudaa'a in la adeeco mooyee بإذن الله إله إذن كيسي وفجنتيسي إراديس لغو أضيع موي رسول ما بدرنا إلهي ليه سبحانه وتعالى رسول كستبها أهاته إلا هدي أندرنه مهمة الله صادري وحاوي يددك حقوز كسارا إني أضيعان أو وحي للا صادري إلهي مدنمديسة إلهي شريعديسي أحكامتيسة أو يددك ويرهيان إلا تاهم بالا صادرهياي وحال وحي للا صادري أو إذن إن أي ددك كراعان أو يكو أضيعان adeecidaasna waxay u xasilaysaa ama ku xasilaysaa Ilaahay iraadadiisa iyo waafajintiisa walaw annahum ayagu id waqti zalamu ay dulmiyeen anfusahum nafafyaalkooda ay dulmiyeen jaa'uka haday ku imaan lahaayeen fastaghfirullaha alla ay ka dambi dhaaf weydiisan lahaayeen wastaghfara lahumur rasuulu rasuulkuna uu dambi dhaaf weydiin lahaa لوجدوا ويهل لهايين الله إلهي توابا عليه توبات أقبل إنه يهي رحيما إن حريسته يهل لهاي مركي نلو شيغي رسوش مهمدوده حق ددك تنكسارا إنه كو أضيعانه وحي إلهي الله صادري أي عدنا وحنا لو إشارة يددكو هدي حمي أي كدعدو طريقة أفرا إنه حميدو غنقدان توبات إلهي وحوليه أيقو haddii markii ay naftooda dulmiyeen xumida ay ku dulmiyeen munaafiqnimada ay ku dulmiyeen kufri calooleedka ay ku dulmiyeen marka sidaas naftooda ay ku dulmiyeen hadday ku imaan lahaayeen rasuulka Allah adiga ay ku imaan lahaayeen oo ayagoo soo noqday ka qoomameeyay haddaba nabiga waxa leeyahay hadday ku imaan lahaayeen hadii nabiga kolkay khilaafeen xukunkiisa ay ku raali noqon waayeen asagana way u xumay faleen شريعتي كلكو قفكو النبي وكو خلافه نبي نفتيسي وحمي بأسمي قف كلكو توبت كينا هينا وحل الربع إنه محوها حميد وكسر روحي حدي آدمي حقيسة يكون تعلق دي إنه محوها يجي وكرر له يديه حتى يكون إيمان الهيم بإلهي ليه سبحانه وتعالى أي إلهي نكدم بالله ويدي سن الهيين أي كقوم مين الهيين حميد كدعري مركي ساعة وقوم ميان وإلهي دم بالله أي كويديستان ورسولك عليه الصلاة والسلام أي قرطان حميدودي مركز رسول كنا وقدم بداف ويدين لها وإلهي وشفع ويدين لها إنه قدم بدافه ويدين لها ساعة دي دعي لهاي وحي هلي لهاي إلهي إنه توابي هاي رحيم الله معناها إلهي وكتوبة أقبالي لها
waana u naxariisan lahaa oo ilaahay wuxuu u furay dadka dambaabahaya dariiq tooba la yiraahdo oo ay uga noqdaan xumid ay uga noqdaan toobadaa waxay leedahay aadaab iyo hab ilaahay uu ku aqbalo ayay leedahay habkaa waxaa ka mid ah qofkii xumidii uu hayay inuu sii daayo asagoo xumidii aan ka foqin oo weli xumidii ku dhex jira hadduu leeyahay ilaahu iga toobad aqbal haddii ilaahay ka yeeli mahay hadduu raba ilaahay inuu ka toobad aqbalo xumidii waa inuu ka foqaayo ka noqdaa habka shuruudiisa kaleeto waxaa ka mid ah inuu ka qoomameeyo wixii uu sameeyey taasna waa shardi labaad shardiga saddexaad waa inuu u qastaa xumi inuusan u noqoninin saddexdaa shuruud ah ayay leedahay toobadu markii dembiga uu sameeyey xaq ilaahay mooye xaq aadami uusan ku saabsanayn haddii xaq aadami uu ku saabsan yahay ee dad uu dulmiyey dad uu wax ka xaday dad uu xantay wax bani aadamka xuquuqdooda dembigiisu uu soo galayo waa inuu dadkii xuquuqdoodii u celiyaa ama iska cafiyaan shuruuda afarta ayay leedahay habkaa qofkii raaca wuxuu helayaa ilaahay inuu ka toobad aqbalay u naxariisanayo falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiimaa shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mimaa qadayta wayusallimuu tasliima falaa warabbika falaadan dhowr macno ayaa ku jira laadaas sala weeyo bimacnaa zaa'ida in la yidhaahdo oo falaa warabbika fawarabbika saa weeyaan macnuhu oo dhaar un keliya iska tahay falaa warabbika fawarabbika rabbigaa baan ku dhaaranhayaay saa loo laqbeeyo macno weeye macnaha labaad laadaas in xarakada saaran laga dhigo alifta ka dambaysa aliful ishbaac oo macnaha laan keliya uu meesha ku jiro falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaaranhayaay macnaha saddexaad laadaa in laga dhigo naafiya markii naafiya laga dhigo oo laba macno ay soo galahayaan waxa la anfinhayo wax ka horeeya inay yihiin iyo waxa la anfinhayo waxa ka dambeeya inuu yahay labadaas macnaha soo galay waxa la anfinhayo waxa ka horeeya hadduu yahay falaysa al-amru kamaa yactaqiduun amarku ma aha siday ictiqaadsan yihiin ama ay doonayaan warabbika rabbigaama ku dhaartay marka saasuu macnuhu noqon hayaa laada waxaa lagu anfinaya wax ka horeeya ee ayaga camalkooda iyo ictiqaadkooda ah waxa ka dambeeya kolka lagu anfinhayana waxa weeyaan falaa warabbika rabbigaa ku dhaaran maayo oo dhaarta ayaaba la anfinhayaa ku dhaaran maayo rabbigaay haddiise aan ku dhaaranhayo arrinkaanu wax loogu dhaarta waa yahay haddase ku dhaaran mahayo arrintaa iska cadi saasoo kale markaa macnuhu noqon haya falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaaranhayaa dhaar inay tahan ku wadaynaa oo ilaahay isagaa isku dhaaranhaya wuxuuna ku hadal qabsanhayaa nebigiisa oo isla hadlahayo falaa warabbika nabi maxamedow rabbigaa yaan ku dhaaranhayaay laa yu'minuuna inayna rumaynaynin oo dadka iimaanba aan laga helaynin xataa yuxakimuuka intii adiga ay kaa xaakim yeeshaan oo wixii arrin ahoo dhexdooda dhaca adiga ay kaaga xaakim yeeshaan xataa yuxakimuuka intii ay kaa xaakim yeeshaan fii maa shajara wixii dhaca baynahum dhexdooda dhaca oo min al umuura ah wax alla wixii dhexdooda dhaca oo umuura oo xugun u baahda ilaa ay adiga kaaga xaakim yeeshaan iimaan laga heli maayo taasu waa shardi iimaanka oo shardi ah oo waxaa halkaana lagu tusaaleynayaa kuwii nebiga xukunkiisa ku raalli ahaan waayey waa tii munaafiqiinta xaalkooda aan kusoo jirnay inay iimaanka ay sheeganhayaan uusan ahayn iimaan la aqbalayo maadaama ay nebiga xukunkiisii ay ka tegayaan oo ay daaquud u xugun tegayaan iimaan laga heli mahayo xataa yuxakimuuka intay kaa xaakim yeeshaan fii maa shajara baynahum dhexdooda wixii dhaca uma markaas dabadeed laa yajiduu ay helin fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda xarajan ciriiri mimaa qadayta waxaad xugmisay ciriiri ayna ka helin oo wayusallimuu ay ka hogaansamaan tasliiman hogaansi shardiga labaad oo iimaanka shardiga waxaa weeye horta waa inay nebiga u xuguntamaan wixii arrimahoo dhexdooda ah waa kow markii nebigu xugmiyo calayhi salaatu wasalaam inay ku raalli ahaadaan oo naftooda ciriiri ayna ka helin ay ka cirirtoon yihiin nebiga xukunkiisii ciriirigaas oo tusinhaya rilo la-aan oo waxaa la rabaa dadku kolkii ilaahay dariiqiisa lagu xugmiyo xaqa markii lagu xugmiyo walow kan xaqaas iyo cadligaasu dhibaato uu soo gaarsiinhayaba ha ahaadee inuu raalli noqdo
إيمانك شروط دي كمتاي وين وقرا لنا الله حكمك إلهي ما لها تاي عدل أي تاي وين وقرا لنا النقطة ثم لا يجد أي هلن في أنفسهم نفطه حرجا لب يعرير أين كهلن مما كي أي كعرتوين قضيت أدوات حكم سي رسولك الله أو يسلموا مركز أي وليب كهجان سمان تسليما هجان وإن هجان سمان وصدات حكم سي أين هجان سنين ومركز حكم سي تبدأت أين مركز كجلجلن سيدي منافق قدام أي حكم كي رسولك إنه أجل كشه ومركز سيد عمر وأتجي تاسو أبال كيس وكلا كل مي سيد عمر ولو أنه كتبنا عن فرل يلي لهم عليهم كركوضة أن اقتلوا لايا أنفسكم نففيالكين اللايا أو اخرجوا بحا من دياركم قريه نكبحا حتى سا كفر يلي لهم ما فعلوه فرل كامي فلين إلا قليل إن ير ومنهم أيا كم دموي تانا معنا يدوحنا لا تصالين هاي هدي ددكا إلهي وكفر يلي لا إني نفتوض اللايان كارهان كوا منافقين تا دي إلهي كفر يلي لها إن أي نفتوض اللايان أو أحكامتا إيا وحا الغو كلفها يو وح علوس لغادي لها سيدي ريب بنو إسرائيل وحا إلهي فرايو إيا توباد سيدا لوغا أقبلها اللغو عسليي كارهان مركي ديبقى عابدين توبادو دي لغادي إن أي إسلايان sidaasoo kale haddii ayagana loogu cuslayn lahaa toobadda iyo waxa takaaliiftoo la farahayaba culays looga dhigi lahaa amaba la fari lahaa guryahoodii iyo dalkooda inay ka tagaan oo hadday xumi sameeyaan xumida sidii looga aqbali lahaa laazim looga dhigo inay naftooda qariib ay ka dhigaan oo guryahoodii iyo dalkooda ay ka baxaan sidaas haddaan ku kallifi lahayn ma ay faleenba ilaahay leeyahay in yar mooye haddaba taas haddaan ilaahay ku kallifin oo arrintiiba ilaahay u fududeeyey oo marka ugu horeysaba waxa uu farayo ay yihiin wax fudud oo awood u leeyihiin ee uusan ku kallifin wax culus oo ina karti u lahayn uusan ku kallifin kolkii xumi ay ka dhacdana toobadii ilaahay u fududeeyay oo looga dhigay inay carabka iyo qowlka iyo qalbiga iyo qaalabkaba ay ilaahay uga soo noqdaan ee wax kaleeto kulfa aan la saarin marka maxaa ka reebay inay toobadii aqbalaan oo amarkii ilaahay fuliyaan tirtirsiis weeyaan marka ilaahay uu ku tirtirsiinayo toobada iyo daacadda iyo awaamirta ilaahay in ay qaataan waxa la wariyay sayid Umar radiyallahu anhu ayda markii soo degtay intuu dhaartay buu yiri ilaahay baan ku dhaartay haddii ilaahay ifari lahaa in aan naftayda dilo naftayda waa aan dili lahaa buu ilaahay baa samahadle oo naga cafiyay takliifta adag ولو أنهم أيقوا فعلوه هذي فلي لهايين ما يوعدون وحلوه وعدين هي به ماذا لكان كاسا خيرا أخير بدنان لها لهم أيق وأشد كاسا أديك بدنان لها تثبيتا سقنا شده أي دين تكسقنا دان وح إلهي فرايو أما كو أتكاتو أما يكو أتكانني هذي فلي لهايين أرمها اللوغو عقل عينين هي وتكاليف إلهي وحل فرهي وحل قريبة هي هذي فلي لهايين فلتان كاسا أخير بدنان لها أدون كودي آخر دودر كا أيا كو أتكان لها سقناشada gummadooda naftooda diinta ay ku sugnaato oo daacada waxay qofku u kordhisaa sugnaasho oo diinta ku sii sugnaanaya had ee jeer qof kulku ilaahay cibaadadiisa iyo daacadiisa iyo khayr ka shaqaynta uu ku shaqaloon yahay iimaankiisu waa kordhaya wuxuu sii korsanayaa sugnaasho gummadiisu diinta ay ku sii sugnaato mar alla markii xumida uu yeelanayo xumida muxuu hawshiisa ay tahay oo macaasida iyo sida ay tahayna iimaankiisu waa nusqaanaya had ijeer waa soo nusqaamaya macaasida waa ku sii nusqaamaya ilaa uu gaaro ilaahay naga nabadgeliyo heer uu ka baabao oo xumidu ay muxuu iimaankiiba baabiiso si nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam oo ku tilmaamay qofku hadduu xumi uu sameeyo inay xumida qalbigiisa wasaq ku reebiso hadduu ka toobad keenana toobadaas waxay noqonaysaa wasaqdaas mid ka dhaqda hadduusan ka toobad keenin oo xumida sii korsan hayana xumida ayaa ku sii kordhaysiya wasaqdaas qalkaas oo marka raan uu ku noqon hayo kala barana ala qulubi ma kaanu yaksibun وإذا وقت قاس هدي كسقنا ذان قمدود الدين تأي كسقناتنا أو وحي لفلا فريق فلانا لآتيناهم واسين لهم من لدنا أكتايا أجر بانكسين لهم عظيم أوين ولا هديناهم صراطا جدا سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. عشركنا maanta wuxuu ka bilaabanhayaa aayadda 69 ee suurada Nisaa kamid ah. aayadka u horeeya labada aayadood sababta ay ku soo degeen waxa la wariyay nin Thawbaan la oran jiray asxaabta nabiga kamid ah ayaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam asagoo ay ka muuqanayso murug. markaasuu nabigu su'aalo yiri maxaa ku helay? markaasuu rasuulka Allah jacaylkaaga yaa aad iigu jira. markaan gurigayga joogo ayaan ku xusuusanayaa markaasay naftaydu kacaysaa ilaa aan ku arkana ma xasilayo. markaasaan waxaan xusuustay aakharo. waxaan gartay in aakharo darajadaadu ay sareynayso nabiyaalka macooda aad ahaanayso. aniguna haddaan jannada galo markaas darajadaada aanan ahaanin waxaan ka cabsaday markaa in aan ku arki waayo. saasuu markaa nabiga u sheegtay calayhi salaatu wasalaam. markaasay aayaddan soo degeen. haddaba taa waxay na tusinaysaa asxaabta nabiga jacaylka nabiga ay jecel yihiin xadda ay ka gaareen ilaa qaarkood kolkii nabiga arki waayaan markay xusuustaan ay hiloobayaan ilaa ay ka arkaan naftooda ayna xasilaynin ilaa ay ka xusuusteen aakharo sideebi muxuu ah adduunka waaba kana waad arkaysaane aakharo ama arki weydaan oo sidaas darteed ay la murugoodaan. marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala ومن يطع الله الله قفكي أطيعه والرسول رسولك أطيعه فأولئك كوا مع الذين كوي بمعود أهانيان أنعم الله إلهي أنعمي عليهم كركوضة من النبيين النبياشي والصديقين هم بدنياشي والشهداء كوي شهددها والصالحين كوي صوصبناء. إلهي وحوليه سبحانه وتعالى قفكي الله أطيعه رسولك سأطيعه وحي علي رسولك سو أي فران فرطومة وحي أي كريبان كهرة كواس أطيعدا لغهلي وحي معوض أهان هيانو يلجر هيان كوي إلهي أنعمي النبياشي rum badanayaashii nabiyaalka rumeeyeen ilaahay rumeeyeen runta ku xil dheeraadeen sida Abu Bakr Siddiq oo kala kuwaasi macooda ahaan haya. shuhadadii ku dhinteen dagaalka cadawga difaaciisa xaqa ay ka difaacayaan kuwii sidaas ku dhinteen shuhadada ahaa macooda ahaan haya. kuwaas heer sare weeyaan. والصالحين كوا صوصوبا ونواناكسنا معوضي أهانيا. طبعا بشارة ويان dadka mu'miniinta ilaahay adeecaya rasuulkiisa adeecaya bishara loo bishaarayn hayo heerkooda inuu sareyn hayo aakhir in ay isla jirayaan dadka wanaagsana. nabiguna waa kii yiri sallallahu alayhi wa sallam qofku wuxuu la jirayaa miciisa ahaanaya kan uu jecel yahay. al mar'u ma'a man ahabba. qofku wuxuu miciisa ahaanaya oo la jiri doonaa kan uu jecel yahay. marka qofku marka waa inuu ka fiirsadaa waxa uu jeclaanayo iyo sababta uu jeclaanayo. وحسن أولئك كواسا وناكسنادين رفيقا حق رفيق نمضة لجرد يلا رفيق نمضة للصاحب نمضة لا صاحبه
kuwaasaa ku wanaagsan nebiyaalka iyo run badanayaashaas iyo shuhadada iyo sulaxadaas la jiridda waa ku wanaagsan yihiin baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. haddaba tirtirsiis iyo bishaara ku sugan dadka mu'miniinta ah naftooda lagu tirtirsiinayo daacada iyo khayraadka si ay u ahaadaan kuwa wanaagsan macooda aakhara markii la gaaro. daalika kaasna alfadlu fadli weeye min allahi ilaahi xaggiisa ahaaday. arrinkaas oo markaas qofkii ilaahi iyo rasuulkiisa adeeca darajadaasu ay gaarsiinayso inuu la jiro dadkii wanaagsanaa nebiyaashii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiintii. kaa waa fadli weeyaan, dheeraadsiin xagga alla ah weeyaan. wakafaa billaahi ilaahay baa ku filan caliiman ogaalka mid wax ogaada allah ku filan oo ilaahay waa og yahay adeeciddaas kay daacad ka tahay iyo kay daacad ka ahayn. kan ilaahay dartii u niyeysan iyo kan u niyeysnayna si kale u niyeysan ilaahay waa og yahay. ogaalkiisaas ayaa ilaahay qof walba ku abaalmarinaya. yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidarakum fanfiruu hubaatin aw infiruu jamiican. halkaana waxaa nooga bilaabanaya aayaad ku saabsan xagga dagaalka. suuraddan bilowgeedii ilaa halka laga soo gaaro waxay ku saabsanayd aadaab xagga ijtimaaciga ah, xagga dhaqanka iyo mucaamalooshada dadku u mucaamaloonayo, gaar ahaan dadka mujtamaca kuwiisa taagta daran, turidda loo turahayo, xuquuqda loo oofinhayo, agoontii, dadka kaleetee caqli naaquska walwaalan, sufahada. dadkaas ayaa nalooga soo bilaabay suuraddan. dabadeed axwaal shakhsiya ayaa waxyaana looga soo sheegay xagga qoyska umuuraha ku saabsan, dhaxalkii, guurkii, waxyaala sidaas oo kaleeta. awaamirtaa ayaan soo haynay iyo waxyaalo kaleeto oo ilaahay daacadiisa iyo ku saabsan. halkaana waxaa ka gudagelaynaa xagga dagaalka, aayaad xagga dagaalka ku saabsan. haddaba aayaadkan waxaan ku arki doonaa taktiigga ama xeelada xarbiga ah, khulaaso ku saabsan ee sida lagu libhelahaya. khulaasadaas oo ka kooban marka ugu horeysa diyaar garow fii wujuubi isticdaadi lilxarb, diyaar garoobidda wujuubnimadeeda loo diyaar ahaado dagaalka iyo xarbaha, iyo digtooni laga digtoonaado cadowga iyo xiilooyinkiisa laga digtoonaado. taa mid weeye. tan labaad waxay noqonaysaa in la nadiifiyo jabhada dagaalka dhexdeeda, la nadiifiyo oo laga nadiifiyo kuwa aan daacadda u ahayn, kuwa fulooyada ah, kuwa ay suurowdo fashal iyo qalaaqal inay ku keenaan jabhadaas, laga nadiifiyo. tan saddexaad waxa weeyaan tirtirsiis, jihaadka la isku tirtirsiiyo, la caddaynhayo jihaadkaas abaalka iyo thawaabka iyo miraha wanaagsan ee laga helayo, iyo xusid la xusayo dadka dacafada ah ee la cabiidsanhayo oo markaas ay waajib tahay dartood in loo dagaalamo, walaalaheennana ah, kuwaas diinta nagula walaal, dhaqanka nagula walaal, kuwa dartood loo dagaalamahayo, xusid la xusayo xaqooda, saas lagu isku tirtirsiiyo thawaabka laga helayo jihaad iyo waxyaalka kaleeto dadkaas fakintooda iyo nusrayntooda. aayaadkan khulaaso sidaas oo saddexdaas qodob ay u waaweyn yihiin ayaan ka arki doonaa. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala: yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeenow khuduu qaata xidirakum, digtoonidiina qaata. digtoonidiina cadowga xiilooyinkiisa iyo makrifalkiisa aad ka digtoon tihiin, digtoonidaas qaata. haddaba digtoonida cadowga laga digtoonaadaa waxay keenaysaa in la diyaar garoobo oo wax alla wixii awood la heli karo xagga hubka iyo xagga dadka iyo xagga maalka, wax alla wixii dagaalka looga baahan yahay in la diyaar garaysto. digtoonidu taasii keenaysaa isla waqtigaas in cadowga xiilooyinkiisa iyo jawaasiistiisa iyo makrifalkiisa laga digtoonaado, ayadoo isla waqtigaas cadowga naftiisa laga wardoonayo oo la ogaanhayo cadowgaas tiradiisa iyo tayadiisa iyo sida uu yahay iyo dhulka uu joogo intaba darsi laga qaadanhayo. digtoonidu intaasba way soo hoosgalayaan. khuduu qaata xidarakum, digtoodiniina qaata ilaahay leeyahay.
فانفروا بحا ثبات جماعة أبحا أو انفروا بحا جميعا أما سلمانتي بحا أبحا عدو دفاعيسة جماعة أبحا جماعة بعد جماعة كوحو هبحدو markaas tabadeed hadana koox kala habaxdo markaas tabadeed koox kala habaxdo kooxooyin sidaas oo istaba jooga u baxa Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala markii arintu kooxadaas ay ku filan tahay awin furo baxa jamiican xaal aad idishiin dhamaantiin baxa markay duruuftu keento kooxahaas inayna ku filnayn cadowgii difaaciisa ee ay keento arintu in dhammaanba la wada baxo إلهي وحوليه أمر عدد كمؤمنين تاكسين هيا إني بحان مركا دمانتوت أي ودا بحان فانفروا بحا ثبات كوحا أبحا أو انفروا بحا جميعا حال أدنتهين مركي تاس نلو شيغي دكتوني دا نلفري بحدة عدوبة دفاعي صلو بحو كوحا يا جماعات لو بحو نلفري إلهي وحن خصوصين هيا إن هاد يجير أي جيران داد أن داعد أهين داد منافقين داد أياغو كعسليسان هيا بحيتان كاس داد كان عسلين هيا إن داد ساسي أي جيران كوا فلين مقبا يا كوا جرى قلبك كقبابا كوا سامر كاس ليس نلو قدق هيا طبيعة ضدنا نلو شيق هيا وإن منكم وحا إذن كمدأ لمن دول بايدن كمدأ قف بايدن كمدأ لا يبطئ أن عسلان هيو نفتيس عسلين هيا غير كيسنا عسلين هيو أو وهسجلين هيا كوا نفتو دا وهسين هيان أو دقالك يا عدو الدفاعي سنشاط عن أولاهين إذن كمدويان قلبي كجرن أو انت كلانا وهسجلين هيا أو حبسي يفلينو يوح كوا سدان كوا سواسين هيا كوا سداسة إذن كمدويان taasoo waxay keenaysaa digtooni dheeraad ah oo gudaha naftooda laga digtoonaado kuwa caynkaas oo kala ah tabiicadooda marka waxna looga sheegaya fa in asaabatkum haday idin asiibto musiibatun xumi musiiba haday idin ku dhacdo xaqii dagaalkii xumi haday idin soo gaarto jab aad jabtaan haday idin gaaro dhimasho haday timaado xumi haday maqlaan dib dhacay hadduu ay dib idin ku dhaco dibka maqlaan qaala marka wuxuu oranhayaa ka dabeecadiisu sidaas ee munaafiqa qad xaqiiqe an'ama Allahu alla waa nicmeeyay calaya ani korkayga waa ii nicmeeyay id waqti lam akun aanan ahaanin macahum macooda shahiidan ku xaadira goobta dagaalka markaanan tegin ee aan iska joogay oo إلهي وإن نعمية مركز نعمة كترين هيا هردي أو هري قابتي دقالك وكم مغنى أو نبكاس وكالعي وحو كترين هيا نعمة إلهي ونعمية مؤقا إني تاسو تهي وح إلهي أقو عرون هيو وح دلي الدنيا أكينا هيا إيا عذاب آخر مو حصوصنا نبكا دعي كليو أنفيرين هيا مركز إلهي إلهي وإن نعمية مركان كهري كواس oonan goobtii dagaalka anugu joogin oo dhibka ka dhacay Ilaahay waa ii nicmeeyay sidaas oo markaa oranaya kolkii dhib idin gaaro waa taa dabeecadiisu kan ximahaya dhibkaas inuu goobtii gole joog ahaado si dhibka wax uga qaybsadana ku fikir maay joogidii uu joogay buu ku mahad ceshan hayay markaa leeyahay Ilaahay waa kii iga reebay dabeecadaas waa mid dabeecadooda kamid ah kolkii dhibku u yimaado نصر يقول مركي لكارنا واتن طبيعته ولئن أصابكم هدو إذن أصيبه فضل هدو إذن أصيبه من الله حق إلهي فضل هدو إذن كأصيبه ونصر يقول يغنيمه يلب عتهشان لا يقولن وحو أرني كأن لم تكن حالي هين بينكم بينكني وبينه بينك سمودة جعيل يا ليتني شليت إذا كنتم حان وهان واي معهم معودا محان وهان واي محان قوبتا قول جوج وهان واي فأفوز أن ليبان فوزا ليبان عظيما وين أن ليبان محان قوبتا قول جوج وهان واي أي أرني مركي لب عطشان قول عدو قد كسوه يسان مركاس وشلايا
dabeecadooda kolkaad fiiriso waaba ayadoon xiriir idiin dhaxaynin kaan lam takun baynakum wa baynahum mawadda wax xiriir ah iyo wax jacayl ah iyo wax sila ah ayadoon idiin dhaxaynin baad moodaa dabeecadooda saasaa ka muuqanaysa maxaa yeelay qofku dadka uu silada la leeyahay xiriirka uu la leeyahay jacaylku u dhaxeeyo dhibkooda waa ka naxaa dheeftoodana waa ku farxaa oo dhibkana waa la qaybsadaa goobtaba golojoog yuu ahaanayna waa la qaybsadaa qalbigiisa iyo qaalabkiisa راديو عصب وحاودين سوق بنايا تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ آذن الشيخ عبد الله علي إلهي أجري حسنات حكسيو سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا عشر كان ما أنت وحوك باللعبان هيا آيات تضباطا يفراد سورة النساء كميدة waxaan ku soo jirnay aayaadkii ku saabsanaa xagga dagaalka ilaahay wuxuu soo faray subxaanahu wa ta'ala digtoonida cadawga aan ka digtoonahay iyo in loo baxaa kooxa loogu baxaa markii arintu kooxa ay ku filan yihiin ama dhammaanba loo baxaa markii arintu in dhammaan la baxa ay keenayso waxaana loo soo sheegay markaas in ay jiraan had iyo jeer kuwo qalbiga ka buka ee munaafiqiin ah oo aan doonaynin dagaalka iyo dhibabkiisa in la gala aan doonaynin munaafiqiin ah oo marka ayagu is cuslaynaya dadkana cuslaynaya oo wax si gelinaya kuwa dabeecadoodana waxbaana looga soo sheegay in ay ku farxaan dadka dhibkiisa hadii dhib meesha uu ka dhaco oo marka ay yiraahdaan markaanu anagu harnay waa ku ficnayn oo ilaahay baa noo nicmeeyay oran hayaan markii lib la gaarana way qoomamoodaan oo haridii bay ka qoomamoodaan wax yiraan alla maxan meeshaas goob joog u ahaan weynay si aan libta wax uga gaarno kaawana loo soo sheegay markii taana loo soo sheegay ayaa halkaana tirtirsiis kaleete dagaalkii la isku tirtirsiinhay ayaana loogu sheegaya ayadoo waxyaalka wujuubkiisa adkeyn hayana naloo daba dhigi doono ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala falyuqaatil hadagaalameen في سبيل الله إلهي جدكيسها كدقالمين الذين كوي يشرون قديان الحياة حياة الدنيا اللي ذاته أما سقيسة بالآخرة آخرة كدنيان كوا هدقالمين في سبيل الله إلهي جدكيسها كدقالمين كوا حياة الدنيا دا أسيدي تهي يرنبن ماذا يدوحي تهي garanayaan inay tahay meel aan lagu baaqi ahaanaynin raaxadeeda iyo nicmadeeda iyo hooskeeda inaan lagu baaqi ahaanaynin iyo layrteeda garanayaan meesha lagu dambaynaya aakhara inay tahay aakharana waxa jannada iyo ridaha ilaahay lagu helo ay ugu weyn yihiin jihaadka iyo xaqa difaaciisa garanayaan kuwa haga teeno xayaatadan adduunyada ah haga teeno oo ha ku iibsadeen aakharo ridaheeda iyo thawaabta ilaahay wixii gaarsiinaya ha ku iibsadeen falyuqaatil fi sabiilillah ilaahay jidkiisa ku dagaalamay xaqa koryeelidiisa dulmiga iyo cadowga gardarradiisa celinteeda ha ku dagaalameen kuwa xayaatadan noloshan adduunyada ah ee liidata laga fiican yahay
yaraanta badan noloshii dhabta ahayd ka sokeeya kuwa gadanayaan bil aakhirati aakhira ku gadanayaan oo yashruunadaan bimacnaa yabiicuuna sidaas ayaa lagu fasiraa waman yuqaatilkii dagaalama fii sabiilillaah ilaahay jidkiisa ku dagaalama oo fa yuqtal la dilo aw amase yaqlib adkaado asagoo qaalib noqda fa sawfa mar dambe nu'tiihi waan siin doonaa ajran ajir baan siin doonaa cadiiman u weyn qofkii ku dagaalama ilaahay jidkiisa ku dagaalama xaqa koryeelidiisa ku dagaalama xaqu codkiisu inuu sar maro ku dagaalama baadilka codkiisu inuu hoos maro ku dagaalama xaqa xoojintiisa sidaas ugu dagaalama oo markaas lagu dilo amase aan la dilina asagu libtii hela ee qaalib noqda labada jeer miday ahaataba waxaan siinaynaa ajir ayaan siinaynaa oo cadiim ah waman yuqaatil kii dagaalama fii sabiilillaah ilaahay jidkiisa ku dagaalama fa yuqtal la dilo aw yaqlib qaalib noqda fa sawfa nu'tiihi waan siinaynaa ajran ajir cadiiman oo weyn haddaba qofka dagaalamahaya xaqa difaaciisa cadowga sidaa ula dagaalamahaya qalbigiisa laba midkood wax aan ahayn inuu geliyo uma bannaano inuu ku dhinto goobtaas oo lagu dilo iyo inuu adkaado wax u dhaxeeya inuu ku fikiro meesha ku jira ma ay jirto labadaas aayadu noo sheegaysa labadaasna waxaa la yiraahdaa ahadul husnayn laba wanaagsan midood ayaa la yiraahdaa labadaas oo inuu shahiidnimo ku dhinto oo ilaahay jannadiisa iyo ridihiisa uu siiyo inuu adkaado oo lib iyo guul uu soo hoyiyo labadaas aayadaanuna ishaaraysaa fa yuqtal la dilo aw yaqlib ama qaalib noqdo adkaada fa sawfa mar dambe nu'tiihi waan siinaynaa ajran ajir baan siinaynaa cadiiman oo weyn wamaa lakum maxaa xaalkiinu yahay laa tuqaatiluuna idan dagaalamaynin fii sabiilillaah ilaahay jidkiisa idan ku dagaalamaynin waalmustadcafiina wa fii sabiili lmustadcafiina mustadcafiinta jidkooda idan ku dagaalamaynin oo fakintooda min alrijaali rag ah wannisaa'i haweena walwildaani caruur ah cadowga in laga sii daayo oo gacantiisa laga saaro idan ku dagaalamaynin maxaa xaalkiinu yahay ayadoo dagaalka wixii keenahayay lahayo wujuubkiisa wixii adkaynhayay lahayo oo ah xaqii in la difaaco iyo dadka cadowgu uu taag daraysanhayay xaasaska ah caruurta haweenka ah duqowda ah dadka kaleetoo fursad aan u helin inay cadowga muxuu ka soo horjeestaan ah kuwaas dartooda idan u dagaalamaynin maxay tahay xaalkiinu haddaba waxay halkaan noo tilmaamaysaa waxyaalka dagaalka wujuub ka dhigahaya wujuubkiisa weliba si adkaynhaya laba xaalo ayaa loo kala saaray xaqa koryeelidiisa iyo dadka ducafada ee mu'miniinta ah cadowga ka sii dayntiisa isticmaarsanhaya laga xoreeyo markaas ilaahay leeyahay ayadoo isagoo nagu tirtirsiinhaya wujuubka adaygiisana na tusaalaynhaya maxaa xaalkiinu yahay maxaa idinka reebahaya inaad dagaalantaan jidka ilaahay aad ku dagaalantaan xaqa koryeelidiisa aad u dagaalantaan iyo xoojintiisa baadilka ka hortagiisa iyo jabintiisa aad ku dagaalantaan maxaa idinka reebaya macnaha ma jiraan weeye wax idinka reebaya cudur idinka reebaya ma jiro والمستضعفين يكون ضعيف سنهيو لا تاق دريسنهيو لا استعمارسنهيو لا غميسنهيو ومن الرجال رقعه والنساء هوانكه والولدان عروطه oo ayagu taag aan haynin oo marka halkaas cadowgu ku isticmaarsanhayo kuwaas ka fakinta isticmaarka ay xornimo saad u gaarsiin lahaydeen idan ugu dagaalamaynin maxaa idinka reebay wax idinka reebay ma jiraan kuwaas marka tilmaamana laga siinhaya kuwaas la ضعيفسنهيو cadowgu gumaysanhayo rag iyo haween iyo caruur bale alladina kuwaas yaquluun oranhaya rabbana ya rabbana rabbiga yow akhrijna nabixi min hadhihi tan alqaryati qaryada الظالم أهلها أهل كودو دلم فلين ربي ونغا سار واجعل يال لنا أنغا من لدنك أكتادا وليا كو ولي أمورها يغا توليه نويل واجعل يالو لنا أنغا من لدنك أكتادا نصيرا مد غرغارنا أكتادا نوغا يال أرانيان
haddaba waxaa la wariyey ibnu cabbaas inuu yidhi waxaan ka mid ahaa anigiyo hooyadayba kuwaas haweenka iyo carruurta la gumaysanhayo la daciifsanhaya ayaan ka mid ahay. ayaddu waxaa soo gelahaya ama ay tilmaamayso waqti kasta ha ahaadeena kuwii tilmaamaha laga helo. waqtiga ayaga kuwii sidaas loo daciifsanayay ha ahaadeen kuwii maka joogay ee hijrada ay soo hajiraan madiine u soo hajiraan taag aan u helin. markaas carabtii reer maka ee gaalada ahayd ay gumaysanayeen, ay dhibayeen, rafaadinayeen, ha soo galeen. hase yeeshee waqti kasta joogto weeyaan. waxaa ku rumoobahaya oo soo galayo si cad ugu rumoobahaya gobonnimo doonka maanta dagaalamahaya u dagaalamahaya walaalahood in ay ka saaraan gumaysiga iyo cadowga gacantiisa inay ka saaraan. dadkaas rag iyo haween iyo carruurba leh oo cadowgu gumaysanhayo dullaynhayo, nafta ka xanuunsanhaya, rabbi baryahaya, odhanhaya rabbigood ayagoo u tadarrucahaya, rabbiyow naga saar qaryadatan ehelkeedu uu dulmi falay. rabbiyow noo yeel agtaada weli nooga yeel, ku weli ahoo noo gargaara, ku libna siiya, ku umuurahayaga tawaliyoo maamula oo sidaan lib ku heli lahayn noo dabbara oo noo maamula. wajcal yeeloo lanaa annaga min ladunka agtaada nasiiran mid gargaara nooga yeel. gobonnimo doonka iyo inta walaalahood oo ayidayoo garab taagan ayaa ku rumoobahaya kuwii weliga u ahaan lahaa, kuwii nasiirka u ahaan lahaa ee u gargaali lahaa. kuwaasay ku rumoobahaya kuwa lagu tirtirsiinhayo laleeyahay maxaa idinka reebahaya. ayadoo taasi ay jirto xaqii inaad koryeelidiisa u dagaalantaan. dadka la taag daraysanhaya ee rag iyo haween iyo carruurba leh cadowga gacantiisa inaad ka bixisaan darteed aad u dagaalantaan maxaa idinka reebaya. kuwaas oo xanuunsanhayo, nafta u ka xanuunsanhaya cadowga dhibkiisa iyo rafaadka uu soo gaarsiiya darteed, oo markaas wasiilo kale iyo dariiq kaleeta inta waayeen ilaahay u gacmo dhiganhayo odhanhayaan rabbiyow naga saar qaryadatan ehelkeedu u dulmi falay. rabbiyow agtaada nooga yeel mid weli ahoo umuurahayaga tawaliyo isku dubarida. rabbiyow agtaada mid gargaara naga si. aladiina kuwii aamanuu rumeeyeen yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiiliillah, ilaahay jidkiisaay ku dagaalamayaan. waaladiina kuwii kafaruu kufriyeen yuqaatiluuna way dagaalamahayaan fii sabiili daaquut, shaydaanka jidkiisa ayay ku dagaalamayaan. markii taas nalagu soo tirtirsiiyey dagaalkii xaqa kuryeelidiisiiyo dadka la gumaysanhayo oo mu'miniinta ah oo rabbi baryahayaan, xanuunka isticmaalka u gaarsiiyey xorayntooda aan u dagaalano markii nalagu soo tirtirsiiyey ayaa halkaana waxna loogu caddaynhayaa ulajoodada mu'miniinta ay u dagaalamaan iyo kaafiriinta ulajoodada iyo dariiqa ay kusoo dagaalamayaan sida ay kala yihiin. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwa alla rumeeyeen, rasuulkiisa rumeeyeen, xaqa rumeeyeen way dagaalamayaan fii sabiiliillah, ilaahay jidkiisa ayay ku dagaalamayaan. waaladiina kuwii kafaruu kufriyeen yuqaatiluuna fii sabiili daaquut, shaydaan jidkiisa ayaguna ku dagaalamayaan. kuwa kufriyeen jidka ay ku dagaalamayaan waxa ay difaacahayaan shaydaan jidkii weeyaan, shaydaan dariiqiisay kusoo dagaalamayaan. marka dadkii mu'miniinta ahaa ee xaqa xoojintiisa ku dagaalamayeen, dadka la daciifsanhayo, la gumaysanhayo, xornimo say u gaarsiin lahayeen ku dagaalamayaan, waxay ku dagaalamayaan jidka ilaah. kuwa ka soo horjoodana shaydaan jidkiisa ayay ku dagaalamayaan. marka mu'miniintii yaa weli u ah? allaha jidkiisa ay ku dagaalamayaan baa weli u ah. kaafiriintiina yaa weli u ah? shaydaanka jidkiisa ay ku dagaalamayaan baa weli u ah. labadaa weli mayay isoo dhigmi karahayaan? maya. faqaatiluu awliyaa ashaydaan, shaydaanka awliyadiisa la dagaalama. shaydaanka kuwa awliyada u ah waa kuwa jidkiisa ku dagaalamaya, gaalada kuwa la dagaalama. inna kayda shaydaani, shaydaanka xiiladiisa iyo makrifalkiisu kaana wuxuu ahaaday daciifan ku taag daran. shaydaanka kaydkiisa, makrifalkiisa u makrifalahayo dadka mu'miniinta ah, xaqa kasoo horjoodkiisa uu ku dadaalahayo kuwa awliyada asagoo la xiriiree kaafiriinta in ay lib helaan ku dadaalahaya, u samaynhaya waswaaska iyo makrifalka iyo waxaasoo dhan u samaynhaya. kaydkiisaas, xiiladiisaas, makrifalkiisaas kolkii la garab dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala libsiinta uu libsiinhayo, u nusraynhayo, u gargaaridda u gargaarahayo dadka jidkiisa ku dagaalamahaya, waxay isu dhigmama.
marka shaydaanku makrifalkiisa xiilooyinkiisu waa tu daciif ah ilaahay leeyahay tu daciif oo taag daran weeye ee marka la dagaalama shaydaanka kuwa la xiriira ee jidkiisa ku soo socda kuwa la dagaalama shaydaanku kaydkiisa iyo makrifalkiisa iyo xiilooyinkiisu wuxuu ahaaday ku daciif oo taag daran hadaba qofka mu'minka xoogiisu wuxuu ku tirsan yahay xoogga ilaahay marna inuu niyad jabo daciifaba ma aha dhibkii gaarana tawaabaa loo qorahaya dhimasho hadday u xasiishana janna hore laga gelinaya kol walba thawaab buu helayaa haddii xataa uu dhaawacmo thawaabaa ilaahay u qoraya hadduu lib helo dhibkii gaari thawaabaa ilaahay ka siinaya hadduu dhinto janno iyo riddo ilaahay buu ilaahay siinaya cashirkeena maanta intaasuu ku egyahay والسلام. سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصاب من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. cashirkana maanta wuxuu ka bilaabanhayaa aayadda 77 ee suurat nisaa ka mid ah waxaan ku soo jirnay aayadihii dagaalka tirtirsiintii dagaalka iyo digtoonidii cadowga aan ka digtoonaana nala farahayay ayaa naloo soo sheegay halkaana waxaana lagu tusaaleynayaa had iyo jeer markii dagaalka la galo iyo intaan dagaalka la gelin in ayna isku mid ahayn oo ay soo baxaan markii dagaalka la galo dad badan oo munaafiqiin ah dad badan oo quluubta ka buka dad badan oo fuleynimo ay qaadayso inay jirayaan ay suruudo intaan dagaalka la gelin xamaasad in ay muujin jireen ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala alam tara miyaadan ogaanin ogaalkaagu miyuusan gaarin ila alladina kuwii qiila layri lahum ayaga kufuu reeba aydiyakum gacmihiina reeba xumida ka reeba dagaalka ka reeba isdilkii aad jaahiligii isku leyn jirteen islaamnimada horteeda sida xil kale ee aan macnaha lahayn isu leyn jirteen wax aan macna lahayn aad ku dagaalami jirteen qabiil u dagaalami jirteen gacmihiina ka reebata wa aqiimu salaata salaada ooga وآتوا الزكاة زكادنا بحي أو قد زكاة كوي سدا لغير فلما كتب مركي لفر اليالي عليهم كركوضة القتال والدقال كالغفر اليالي حق أي كود دقال لما إلهي كلمة ديسة كر ولقد دادا أي كود دقال لما ضدك مسلمين تهيلا ضعيف سنهي عدو قميسان هيو إن أي كحريان أي كود دقال لما kolkii dagaalka lagu faral yeelay
idaa waqtigaa fariiqun qayb oo minhum ayaga ka mid ah yakhshawna annaasa dadkiibay ka cabsanhayaan ka khashyatillaahi ilaahay cabsashadiisa oo kale ilaahay cabsida laga cabsanhaya oo kale aw amase ashadda khashyatan cabsi kasii adayg badanba cabsidii alle laga cabsanhaya cabsi kasii adayg badan ayayba dadkii ka cabsanhayaan waxaa la isku cajabgelinhayaa kuwii kolkii hore dagaalka u hanqaltaagahayay horeyna dagaalyahano u ahaayeen wax aan macno lahayn isku layn jireen ee qabiil qabiil u dagaalami jireen markii islaamka ay soo galeen islaamku ka baabi'iyey qabiil qabiilkii iyo waxa aan macnaha lahayn u dagaalami jireen markaas dagaal u xiiseen ama dhibkii kolkii gaaladu ay soo gaarsiiso islaamnimada ay ku dhibayeen caroon jireen idan nebiga ka weydiisan jireen oo oran jireen yaa rasuulallaahi dagaal noo aan isdifaacanay markaa nebiguna uu oranhayay intaan dowladnimadu isku dubadhicine ka us nebigu joogay nebiguna markaa intaa hadba uu oranhayay gacmihiina joojiya dagaalkii islayma amrin sidaas nebiguu oranhayay ee markaas la farahayay salaada oogideeda iyo sakada gudashadeeda iyo khayraadka kaleeta ku shuqloonkooda sidaa la amrahayay markii dambe ee dagaalkii lagu faral yeelay ee dagaalkii la waajibiyey ee ahayd markii nebigii asxaabta ay soo haajireenoo madiine ay yimaadeen halkaas dowladda ay ka caga dhigatay islaamka ahayd markaa la faray inay iska celiyaan cadowga ee dagaalkii lagu waajibiyey sidii ilaahay aayaadkii kale ku faray udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waa loo idmay kuwa lala dagaalamahayo in la dulmiyey darteed baa loogu idmay markaas idaa fariiqun qayb minhum ayagii ka mid ah yakhshawna waxay ahaadeen kuwii cabsanhaya annaas dadkiibay ka baqahayaan la dagaalankiibay ka baqahayaan xaqi inay ku dagaalamaan oo cadowgii iska celiyaan bayba ka fulooyoobahayaan cabsida markaas dagaalka iyo dhibabkiisa ay ka baqahayaan waxay la mid noqotayba cabsidii ilaahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ay ka baqahayeen yakhshawna annaasa dadkiibay ka cabsanhayaan ka khashyatillaah ilaahay ka cabsashadiisa oo kale siday ilaahay uga cabsan lahaayeen ee ciqaabkiisa iyo caradiisa iyo cadaabkiisa uga baqayeen ayay uga baqayaan dadkii aw ashadda khashya ama cabsi ka adayg badan cabsidii ilaahay cadaabkiisa ay ka baqayeen cabsi ka adayg badan ayay dadkii ka baqahayaan oo haddii dagaalka cadowga lala dagaalamaya laga cararo ama laga fariisto ama laga baqo cadaab iyo cara ilaah baa meesha imaanay haddaba dagaalkiina dhibab buu leeyahay waa lagu geeriyoodaa waa lagu dhaawacmaa waa lagu rafaadaa dhibab buu leeyahay dagaalkuna markaa dhibkii dagaalka uga imaanhayee dadka ay la dagaalamahayaanee cadowga ah uga imaanhayay hadday dagaalka galaan iyo haddayna dagaalka gelin carada iyo cadaabka uga imaanayay isku sibay ahaadeen kuwa uga baqahay ama dadka dhibkiisii cabsida ay ka baqayaan ayaaba kasii badnaatayba markaasay xaggii cadaabka ay u leexanhayaanoo dagaalkii ka fulooyoobahayaanoo ka harhayaan kuwa sidaasa ayaa dadkii ka mid oo waqaaluu markaa odhanhayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow lima katabta maxaad u faral yeeshay calaynaa korkayaga alqitaala dagaalka maxaad ugu faral yeeshay rabbi ow maxaad dagaalka noogu waajibisay bay markaa odhanhayaan kolkii horena waa laga celin la'aa waxay lahaayeen aan iska celinna cadowga ee rasuulka allow idan noo sii markaasaa rasuulku odhanhaya dagaal la ima farin ee salaadii iyo zakadii iyo muxuuha ku shuqlooma daacaadka iyo khayraadka kolkaas dagaalkii la waajib yeelay ayay fulooyoobahayeen markaasay odhanhayaan rabbi ow maxaad dagaalka noogu faral yeeshay lowlaa akhartanaa maxaad noo dibdhigi weyday ilaa ajalin muddo qariibin oo dhow maxaad noogu kaadin weyday oo dagaalka ku faral yeelitaankiisa nooga kaadin weyday intaan muddo bal ka gaarino oon ka diyaar garowno oo sidaas ayay markaa odhanhayaan qul waxaad dhahdaa mataacu dunyaa adduunyada mataacdeeda iyo sahideeda iyo raaxadeedu qaliilun ki yar weeyaan wal aakhiratu aakharaa khayrun khayr badan liman ittaqaa qofka cabsanhaya walaa tudlamuuna laydinka dulmin mahaya fatiilan qadra fatiilin fatiil qadarkiisna laydinka dulmin mahayo findhicil qadarkiisna laydinka dulmin maayo markay sidaa u fulooyoobahayaan fulooynimadaa waxaa keenaya laba xaala midood wey
xayaatada adduunyada iyo raaxadeeda jacaylka ay jecel yihiin layrta inay sii joogaan jacaylkaas inuu ku xambaarayo geerida baqdinteeda ay ka baqahayaan ka cabsashadaas inay ku xambaarayso labada xaalo mid weeyaan marka labada xaalaba waa loo sheegaya xaqiiqadoodu waxay tahay waxaad ku tiraahdaabaa nabiga lagu leeyahay calayhi salaatu wasalaam kuwa sidaas oo kaleeta had iyo jeer qowlka ilaahay baa u taagan kuwa xaalkaas iyo tilmaamahaas oo kale yeesha nabigu kuwii lagu lahaa sidaas ku dheh kuwii markaa joogay keliya ma ilaa yowmal qiyaamati wixii tilmaamaha soo gala oo dhan weeyaan waxaad ku tiraahdaa adduunyada mataacdeeda raaxadeeda iyo layrteeda qaliilun mid yar weeyaan haddaba caqligaaga fiir intee joogaysaa xataa haddii lagu kaadiyo wax yar unbaad joogaysa marka adduunyada mataacdeedu wax yar weeyaan cunudeeda iyo cabiddeeda iyo layrsigeeda iyo duljooggeedu wax yar weeyaan wal aakhiratu aakhira khayrun khayr badan liman ittaqaa qofkii alla ka baqa qofkii ilaahay ka cabsada ee fartooma wixii la farahayo waxa lagu kallifaya xaq ilaahay looga kallifaya xaqa xoojintiisa darteed iyo cadowga ka difaacidiisa laga difaaco takaaliifta la farahayo sidaas fartoomideeda ilaahay uga cabsada aakhira u khayr badan xayri waa raaxo joogta ah weeyaan wax naqsi ah iyo wax xumi oo ku dheehanna aan la arag walaa tudlamuuna la idin dulmin mahayo fatiilan qadra fatiilan la idinka dulmin mahayo fatiil qadarkiisna la idinka dulmin mahayo fatiilka waxaa la yidhaahdaa oo culummadu ku tilmaameen timirta diirka kore marka laga qaado lafteeda meesha jeexan inta ku jirta meeshaas wax yar oo maxaa ku jira leelan aad moodo intaas oo kalena laga dulmin mahayo macnaha wax yar oo miiq ana laga dulmin mahayo qof walba wuxuu kasbaday ayaa loo ofinhayaa in khayran khayr hadduu ahaa wuxuu kasbaday fa khayrun abaalkiisu khayr wey wa in sharan shar hadduu ahaa wuxuu kasbaday fa sharun abaalkiisuna shar wey taa waa sidaa hadday raaxa jacayl uga tagayeen waxaa la xusuusiyey adduunyada raaxadeedu inayna joogto ahaanaynin ee wax yar ay tahay kol walba laga tagayo marka qofkii mar walba hadduu adduunyadan raaxadeeda iyo layrteeda iyo cabiddeeda iyo cunudeeda iyo iska jooggeeda haddii uu ka tagahayo dariiqa la aadahayana ama meesha la aadahayana aakhare ay tahay qof walbana wuxuu soo kasbaday lagu abaalmarinhayo qofku waxa uu kasbadana ay ugu fadli badan tahay ama ugu wanaagsan yahay jihaadka asagoo xaqa difaacaysa darta u dhinta marka maxaa kolkaas aad uga falooyoobaysaan mawdka cabsashadiisa iyo geerida baqdinteeda hadday tahay waxaad uga falooyoobaysaan aynamaa takuunuu meel aad ahaataanba yudrikkumul mawtu mawdku waa idin haleelaya meel aad joogtaanba geerida ka baxsan kari maysaan oo waa idin soo haleelaysaa malaku mawdku waa idin imaanaya malaku mawdku kuma gabado dayr la yeeshay iyo sar la isku xiray iyo meel la galay iyo meel la isku laalaabay loogama baxsado walow kuntum aadba ahaateen fii buruujin saro mushayadatin la adkeeyey qalcada la adkeeyey ee aad loo koryeelay taas dhexdeedaba aad ahaateene mawdku kii idin soo haleeli weeyaan marka haddaad cabsi geeri aad ka baqaysaan dagaalka uga harey lahaydeen geeridii ka baxsan maysaan kolba tii idin imaada weeyaan waqti ilaahay qadaray bayna leedahay dagaalka gelidiisa waqtigii ilaahay u qadaray uga go'i mahayo sida haridda uu ka haro uusan uga baxsan karayninoo waqtigii aan dib loogu sii kaadinaynin marka haddii uu yimaado imise dagaal galeen ah oo had iyo jeer dagaal gasha oo cumrigoodii iska dhammaysato oo dagaaladii aan ku dhiman imise ayagoon dagaaladii gelin gogasha korkeeda maalin walba isaga dhimanaysa aynamaa takuunu meelaad ahaataanba yudrikkumul mawtu mawdku waa idin haleelaya waa idin soo gaaraya mawdku waa idinku dhacaya walow kuntum aadba ahaateen fii buruujin saro mushayadatin la adkeeyey oo dhiskooda la adkeeyey oo la korya wa in tusibhum hadday asiibto xasanatun xaalad wanaagsan nasri qaniimo barwaaqo risqi waasaca
haddii xaaladdaa wanaagsan ay asiibto kuwa munaafiqiintoo dabeecadoodu saa tahay yaquuluhu waxay odhanhayaan haadihi tan min cindillaah ilaahay agtiisii ahaatay waa nicmo ilaahay xaggiisa nooga sugnaatay ayay odhanhayaan wa in tusibhum hadday asiibto sayi'atun xumi hadday asiibto jab hadduu ku dhaco jira hadday ku dhacdo faqri hadduu ku dhaco abaar hadday ku timaado yaquuluhu waxay odhanhayaan haadihi tan min cindika agtaadii ahaatay adiga xaggaagay nooga xasishay naxsigaaga iyo shu'migaaga weyn markay abaaru soo marto markay muxuu ahaa jira soo marto markay xooluhu ka dhintaan markay dhibaato kala gaarto waxay baasaysanhayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay odhanhayaan xaaladan adiga xaggaagay nooga sugnaatay nebiga hortiisa ku odhan kari maayaane dhexdoodii markaas sidaas ku leeyihiinoo asagaa shu'migaan iyo baaskan asagaa watay sidaas ayay odhanhayaan ilaahay baa kashifahaya waxay ayagu hoos ahaan u qarsanhayeen ayaa ilaahay deerka ka qaaday oo nebigiisa u sheegaya iyo dadkii oo dhan lagu dul akrinaya markaa ayagiina meeshii bay ku ceeboobayaan qul waxaad tidhaahdaa kullun ku kasta oo min alxasanati wasayi'ati min cindillahi ilaa agtiisu ahaa wax kasta waxa xun iyo waxa sanba khayr iyo sharkaba wax kastaba ilaahay agtiisay ka ahaadeen xagga ahaysiintooda iyo abuuridooda ilaahay agtiisa ayay ka sugnaadeen famaa lihaa-ulaa'i kuwan xaalkoodu muxuu yahay alqowma qoomka laa yakaaduuna ayna garanayninba oy sigayninba yafqahuuna inay kasaan xadiisan war kuwa aan waxba kasaynin oo inta loo caqli celinhayo aan caqli qaadanaynin xaalkoodu muxuu yahay cashirkeenna maanta intaasuu ku ogyahay wasalaamu calaykum maanta wuxuu ka bilaabanhayaa aayadda 79 ee suuratu nisaa ka mid waxaan kusoo jirnay aayaadkii xagga dagaalka ku saabsanaa ilaahay wuxuuna soo yiri subxaanahu watacaala meel aad ahaataanba mawdku kii idin soo haleeli weey walow saro la adkeeyey oo dheerdheerba aad ku jirteeni haddii xasano ay ku asiibto xaalad wanaagsan kuwa munaafiqiintu waxay odhanhayaan hadday xasano iyo wanaag u asiibo khayr iyo barwaaqo hadday helaan waxay odhanhayaan tan waa xagga ilaahay xumi hadday ku dhacdana waxay odhanhayaan tanu waa agtaada ayagoo nebiga ku odhanhaya calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la soo yidhi waxaad ku tiraahdaa ku kasta wanaag iyo khayrba min cindillaahi ilaahay agtiisu ka sugnaada kuwaan marka maxaa xaalkoodu yaha laleeyay fahmi darridooda iyo damiinnimadooda iyo waxa loogu caqli celinhaya sidayna u dhaadhacaynin ayaa la isku cajabgelinhaya marka ilaahay wuxuu leeyahay famaa lihaa-ulaa'i kuwaan alqowmi qoomka maxaa xaalkoodu yahay laa yakaaduuna ay u dhowaanayninba yafqahuuna inay kasaan xadiisan war inay kasaanba ayna u dhowaanaynin maa asaabaka wixii ku asiiba xaqiiqadaa markaas loo sheegahaya wax alla wixii ku asiiba oo min xasanatin xasano ah fa min allaahi xag alla weeyaan ilaahay ayaa qadaray abuuriddeeda iyo ahaysiinteeda xag alla weeyaan wamaa asaabaka wixii ku asiiba oo min sayi'atin xumi ah fa min nafsika naftaada xaggeedu ahaaday iktisaaban kasbashada iyo camalfalidda iyo sababteediiyo dariiqii xumida ku gaarsiinaysay raacidda aad raacday kolkii dhankaa la eegana adiga xaggaaga weeye haddaba ilaahay subxaanahu watacaala ashyaada abuuriddeeda asagaa iskale qadariddeeda isagaa iskale marka shay kasta wuxuu u sameeyey sabab iyo waxyaalo gaarsiinhaya qofkii jidka qaada manaa dariiqii ilaahay u sameeyey khayrka inuu gaarsiiyo qaada khayrkii yuu helayaa qofkii xumidii dariiqeedii iyo jidadkeedii raacana wuxuu helayaa xumidii marka saas daraaddeed qofka waa loo nisbaynhayaa wixii uu xumi u hoos sameeyo waa lagu tiirinhayaa waa loo nisbaynhayaa kasbashada uu kasbaday raacidda jidkeedii ilaahay u sameeyey uu raacay sidaa ayaa loogu nisbaynhayaa kolka ilaahay loo nisbaynhayana waxaa weeyaan ahaysiinteeda iyo qadariddeeda saasna ilaahay waa loogu nisbeeya maa asaabaka wixii ku asiiba min xasanatin xasana ah fa min allaahi ilaahay xaggiisa wey wamaa asaabaka wixii ku asiiba min sayi'atin xumi ah fa min nafsika naftaada xaggeeda wey wa arsalnaaka waan ku dirnay rasuulka allow linnaasi dadkaan kuu dirnay rasuulan xaal aad tahay rasuul la soo adeejiyey xag alla laga soo adeejiyey adigoo sidaas ah yaan ku dirnay oo muhimmadaadu rasuulnimadaa weeyaan adeeg gaarsiintaa weeyaan wa kafaa billaahi ilaahay baa ku filan shahiida mid markhaati ahaada waxaa leeyahay kuwaas aan waxba fahmaynin xaqa sidaa uga soo horjooda
adigu muhiimadaadu waxay tahay uun inaad gaarsiisid wixii lagula soo adeejiyey ilaahay baa markhaati ugu filan ogaal asagaa ugu filan waxa ay samaynhayaanoo xumiya asagaa la socda waxa ay qarinhayaan ee uurkooda ay ku qarinhayaanoo adiga ay kuusoo bannaan bixinaynin asagaa la socda asagaana ka abaalmarinhaya man yudici rasuula rasuulka kii adeeca faqad xaqiiqe ah adaaca allaah alluu adeecay qofkii rasuulka adeeca dee wuxuu ku adeecaya waxaa weeye adeegii xag alle uu ka soo gaarsiiyey unbuu ku adeecahaya wax aan xag alla ahayn rasuulku dadka ma soo gaarsiinayo saas daraaddeed ayaa la yidhi wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxa nebigu hadli maayo xagga hawadiisa ka hadli maayo ma aha waxuu ku hadlahayo waxyi mooye oo loo waxyoonhaye markaas rasuulka qofkii adeeca wuxuu ku adeecahayaa uun adeegii xagga alla lagala soo diray marka alluu adeecahaya man yudici rasuula rasuulka qofkii adeeca faqad adaaca allaah alluu adeecay qofkii caasiyana alluu caasiyey waman tawallaa kii jeesta oo rasuulka adeecidiisa ka jeesta famaa arsalnaaka kuma aanan dirin rasuul allow calayhim korkooda xaafidan inaad ahaata kii xifdinhaya kii wakiil u ah kii muxuu ahaa asagu haddii ay xaqii ka jeesteen asagu ku abaalmarinhaya sidaas kuguma aanan soo dirin abaalmarintaas ilaahay ayaa iskalow hadhow wuxuu mutaystay ku abaalmarinhaya adigu muhiimadaadu risaaladaa gaarsiinteeda weeye sidaa u gudo saasaa laleeyahy waman tawallaa qofkii jeesta famaa arsalnaaka kuma aanan dirin calayhim korkooda xaafidan inaa ahaata kii xifdinhaya oo waxay samaynhayaan u qorahaya saxaa'ifta iyo malaa'igta muxuu ahaa ee amarka asagay ka qaadanhayaan adiga ma ahi muhiimadaadu risaaladaa weeyaan wixii hadba ilaahay ku faro inaad fartoontid weeye haddii ay tahay inaad risaaladaas si qabow ah iyo si muxuu ahaa deganaan aad ku gaarsiisid sidii intii maka uu joogay oo dhan sidaas uu ku gaarsiinhayay dagaalka laga celinhayay markii dambe oo dagaalku laga maarmaan noqdayna dee ayana ilaahay baa farahayoo amar alle unbuu ahaa wixii lala soo diray yuu ka mid noqonhayay difaacaya xaqa muxuu cadowga laga difaaco jihaadkuna sidaasuu ku yimid wayaquuluuna waxay odhanayaan kuwii gaalada ahaa munaafiqiintoodii daacatun amrunaa amarkayagu daacatun adeecid weeye bay odhanayaan oo adiga lagu adeeco munaafiqiinta xaalkooda sidaasuu ahaa nebiga u muujinhayaan inay daacad u yihiin inay adeecayaan markaasay ku odhanhayaan waxaa amarkayagu waa adeecid weeyaan weliba ay ku dhaaranhayaan markay nebiga la joogaan oo hortiisa ay joogaan saa weeyaan xaalkooda fa idaa barazuu hadday baxaan min cindika agtaada ay ka baxaan bayad daa'ifatun koox minhum ayaa ka mid a waxay hamiinkaas bariisinhayaan khayra aladii kii kayrkii taquulu ay lahayd fiidka hore nebiga hadday u yimaadaan calayhi salaatu wasalaam oy u muujiyaan inay adeecsan yihiin oo amarkoodoo dhan uu yahay inay fuliyaan waxa uu faro markay agtiisa ka tagaan xumi bay cawadaa isugu tegahayaan xumi ayay cawadaa isugu tegahayaan oy ku tashanhayaan tabyiidku waxa weeyaan amar la maamulo cawadii oo lagu tashado cawadii bay xumi ku tashanhayaan xumidaas oo aan ahayn warkii awal ay lahaayeen warka ay lahaayeen amarka iyagoo adeecid weeye warkaaga inaan yeelno weeye amarkaad farto in aan fulino weeye wax aan ahayn ayay hamiinkii baraysinhayaan oo ah sheekaysi iyo ku tashi ay ku tashanhayaan nebiga siday ula cadaawoon lahaayeen amarkiisa siay uga hortegi lahaayeen oo u jebin lahaayeen waxyaala sidaas siday cadowgiisa ugu kaalmayn lahaayeen oo hoos ugala xiriiri lahaayeen arrimahaas oo makrifalka iyo xiiladda ah ayay cawadii ku tashanhayaan oo cawadii ku baryahayaan markay baxaan baa ilaahay leeyay agtaada ay ka baxaan koox ayaga ka mid ah waxay ku tashanhayaan cawadii oo hamiinkii ay baraysinhayaan kii ay lahayd kayrkiisa khayra aladii taquuludaas faacilkeedii laga dhigo kooxda ayada ah wixii ay lahayd oy lahaayeen daacatun amrunaa daacatun ay lahaayeen wax aan ahayn ee khilaaf ah ayay cawadii baraysinhayaan ama khayra aladii kii kayrkii bay baraysinhayaan
taquulu aad lahayd anta adigu yaa rasuulallah rasuulka alla wixii adigu aad lahayd ood faraysay ood ku hanuuninaysay wax aan ahayn ee kasoo horjooda ayay cawadii bariisanhayaan oo ku tashanhayaan oo cawadaas ay ku baryahayaan xaalkoodu sidaa weeyaan munaafiqiintu had iyo jeer meel ay joogaanba amarkoodu waxaa weeyaan kolka dadka ay iska ilaalinhayaan ama ay ka cabsanhayaan oo madaxda ah kolka ay la joogaan waxay u muujiyaan daacadnimo iyo adeecid ayay u muujiyaan markaasay leeyihiin annagu amarka iyagu adeecid iyo amar fulin weeye sidaasay odhanhayaan markay ka tagaan oo gooni isula baxaanna waxay ku tashadaan amarkii siday uga hor joogsan lahaayeen fulin ay fuliyaan iska daayay say u jabin lahaayeen iyo xubin iyo makrifal ayay markaa ku tashadaan oo cawadii ay meelo isugu tagaan oo saa ku baraysiyaan marka xaalka dabeecadooda iyo tilmaamahooda had iyo jeer saa weeyaan saasaana ilaahay noogu tilmaamaya wallaahu ilaahay yaktubu wuu qori maa yubayituuna waxay cawadii ku tashanhayeen waxay cawadii ku tashanhayeen oo hameenkii ay baraysinhayeen ee amar jabinta ahaa makrifalka iyo xiiladda ahaa ilaahay waa u qoraya ilaahay baa la socday cabsiis weeyaan iyo digid looga degahayo curubxumada ka imaan doonta makrifalka iyo xiilooyinka ay samaynhayaan ilaahay waa u qorayaa waxay hameenkii ku baryahayeen waxay hameenkii ku tashanhayeen oo hameenkii bariisanhayeen ee fa acrid jeeso adigu canhum xaggooda isaga jeeso waxba huwa aabayeelin watawakkal cala allaahi ilaahay tala saaro ilaahay ku kalsamow maadaama xaqii adigu aad ku taagan tahay ayagana allah la socda waxay hoos ahaan u maamulayaane asagaa u qorahaye eh asagaa ka abaalmarin haye eh ha u aabayeelinoo muhimmadaadii iska wado ayaga xaalkooda ha ku shuqloomina fa acrid canhum xaggooda isaga jeeso watawakkal cala allaahi ilaahay tala saaro wakafaa billaah ilaahay baa ku filan wakiilan mid wakiil ahaada oo amarka loo tiirsado amarka loo bandhigto asagaa ku filan afalaa yatadabbaruuna alqur'aana qur-aanka miyayna fiirfiirinaynin halkaana qur-aanka siduu mucjis u yahay oo qofkii qur-aanka eega macaanidiisa usluubtiisa sida uu u hadlayo cilmigu ka hadlayo fiiriya sida uu ugu garan kara xaqa ayaa meeshana lagu tusinhayaa markaasaa la isku tirtirsiinaya qur-aanka in la fiirfiiriyo macaanidiisa inta la barto la dhuuxo afalaa yatadabbaruuna alqur'aana qur-aanka miyayna fiirfiirinaynin manaa low qur-aanka ay tadabburi lahaayeenoo macaanidiisa ay raacraaci lahaayeen xaqa way ku garan lahaayeen walow kaana hadduu ahaan lahaa qur-aanku min cindi gayri illaah ilaahay kayrka agtiisa hadduu ka ahaan lahaa lawajaduu way heli lahaayeen fiigiisa ikhtilaaf kaasay ka heli lahaayeen kasiiran oo badan qur-aankan haddii xag alla uusan ahayn oo ilaahay kayrkii uu la imaan lahaa sida ayagoo ay leeyihiin dad kaleetaa u dul akrinaya asagaa abuurtay waxyaalka ay leeyihiin hadduu ahaan lahaa sidaan ma ahaadeen waxay ka heli lahaayeen ikhtilaaf macaanidiisu ay isburinayso iska hor imaanhayo macaanidiisu ayna muxuu ah fasaaxad saas u wada lahayn saasay ka heli lahaayeen qofka aadamiga ah ama khalaa'iqda kaleeto dhan wixii ilaahay kasoo haray oo dhan naqsi baa ka buuxa naqsi ayaa ka buuxa qofkii naftiisiibaa intaasoo jeer isbedelhaya oo waxaa suurado hadda hadduu war wanaagsan oo fasiixa uu qoro hadhow haddana war kale uu qoro muxuu ahaa naqsi yaa ku imaanhayo hadalladiisoo dhan iyo wuxuu qorahayo oo dhan heer keliya islama wada ahaan karayaan hadday qur-aankaanu xag alla uusan ahayn waxay ka heli lahaayeen ikhtilaaf iyo iska hororimaad iyo macaanidiisu isjabisay iyo sidaa ayay ka heli lahaayeen laakiin hadda kolkay fiirfiiriyaan waxay ogaanayaan waxaasoo dhan iyo wax isburina iyo wax iska horimaada inayna ku jirin heer sare inuu dhammaantii wada yahay oo wax gaari kara inay jirin ilaahay wax kasoo haroo la imaan kara inay jirin marka way ku